إله بقى محله ونوسور تجري معنتها إن أودي أرجروني doorashadii muddada dheer aan sugaynay oo ku astaysan 15 May usbuuca soo socda mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta leh waxaan weydiisanayaa aan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan inaad u heelisaan isbedel doonka inaad u heelisaan dawlad wanaagga oo ku dhisan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaniyada patriotismka waxaad haysataan barnaamijkii isbedel doonka socda waxaan rabaa inaan ka taabto xagee ka yimid isbedel doonku wuxuu ka yimid waxa la yiraahdo isbedel doonka fadhiidka ayuu ka yimid oo taariikhdeena ku suntan aan soo aragnay khibradeena markaan kaashanana muddooyinkii la soo dhaafay aan ognahay wixii dalkan soo maray saad ogtihiinba isbedel doonka socda ama isbedelka socda wuxuu ka bilowdaa waqtiyadan hadda aan joogno doorashada ah waxaa dhasha ama aad doorataan madaxweyne cusub madaxweynahaas cusub ma yaqaano waxa adduunka uga soo horeeya waxaase muhiim ah inaan idin sheego waxa uga soo horeeya laba arrimood oo muhiim ah inaan ogaano ama aad ogtihiinba waxa uga soo horeeya la dagaalan ka shabaab iyo cadowga shabaab oo ah argagixiso international ah iyo faragelin shisheeye oo dawlado qaar ay ajenda u tahay Soomaaliya inaysan cagaheeda ku istaagin qofkaas cusub intaas soo wareegay yaa wuxuu bilowdaa hawlihiisii kale in uu magacaawdo xukuumaddiisa inuu dawladdiisa dhisto 6 bilood ugu horeeya waa isbarasho 6 bilood ku xigtana waxa bilowda political instability xasilooni la'aan siyaasadeed bilaabata halkaas waxa ku kala qaybsama golaha shacabka conflict bilowda sanad gudaheeda waxa laga yaabaa inuu ka baxo prime minister kaas ama xukuumaddaasi ka baxdo caado waxa ah sanadka ku xiga in la magacaabo hadana xukuumad cusub xukuumaddaas cusubna ay jidkii hore marto 6 bilood isbarasho ah iyo 6 bilood oo political instability ah halkaas waxa cad labadaas dawladood inaysan waxba qaban oo ay fadhiid yihiin dawladda saddexaad sanadka saddexaad bilawgiisa waxaa la magacaabaa xukuumad kale xukuumaddaas markay 6 bilood jirto 6 bilood ku xigta markii ay bilaaban rabto iskhilaafaad ama khilaaf bilaaban rabo waxaa la xasuustaa in doorashadii hal sano iyo bare ka dhiman tahay waxaa la bilaabaa noocee yaan galnaa doorasho noocee galnaa dastuurka waxaa noogu qoran doorasho qof iyo cod ah waxaa la ogaadaa doorasho qof iyo cod inaan laga gaarin maxaa yeelay labadii sano la soo dhaafay iyo barka in aan laga shaqeynin wax dawladda ama dawlad wanaagga laga shaqeynin waxaa loo galaa madal iyo heshiis siyaasadeed in lagu dhameeyo wixii uu nafarayay dastuurka sanadka saddexaad waxaa la isku afgartaa heshiis siyaasadeed halkaasna waxaa ka bilowda madal la wareegta hawshii baarlamaanka sanadka afraad baarlamaanka waa la xiraa albaabada la isku dhuftaa mushaharna ma qaataan sanadka afraad si la iska daba ordaayo sanadka shanaad baa la galaa halkaas iyo doorasho ka dhacda doorashadaas oo ay ku dambayso 70% baarlamaankii hore inuu soo noqon halkaasi waxaan ku baranay doorasho dadban iyo nooc ay tahay dawladda ku xigta iyaduna saasay ku bilaabataa saasayna ku dhamaataa xasilooni la'aanta siyaasadeed waxay dhashaa ama saamaysaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha bulshada iyo saamaysaa immediately arrimaha dhaqaalaha markaan ka hadlo bacdama dawladda haysato oo khilaafaad badan ka jiro qof kasta oo xun wuxuu ka fakaraa sidii uga faa'iideysan lahaa waqtigaas la haysto aan la xisaabinin musuqmaasuqa cirku maraa waxaa bilowda in dhaqaalihii uu hoos u dhaco maxaa yeelay dakhligii cashuurihii lama aruuriyo dakhligii hoos u dhacaa mushaharaad lama bixiyo kontraadyo waxa la bixiya aan sharci waafaqsaneen
mararka qaarkoodna waxaa lala galaa kambaniya shisheeye in lala galo kontraadyo aan waafaqsanayn shuruucda dalka mararka qaarkood dowladaha lala galaa heshiis aan waafaqsanayn maxaan ku rahdaa shuruucda dalka bacdama dhaqaalaan ka hadlayno World Bank iyo IMF-ka iyo African Development Bank dee lama shaqayn karto system ama dowlad aan xasiloonayn musuqmaasuq kaliya musuqmaasuq uu hareeyay halkaas waxaa dhammaada wada shaqaynta IMF-ka iyo World Bank markii dhaqaaluhu saas u xun yahayna markii waxay saamaysaa arrimaha amniga iyo saamaysaa arrimaha amniga musuqmaasuqa waa galaa ilaa systemko dhan yaa wuxuu yahay system fashilmay oo fadhiida ciidamada waxaa gala musuqmaasuq markiibana waxaa bilowda in aan mushaaraad kala bixin iyagoo awalba mushaaraad fiican aan qaadanayn ciidanka qalabka sida iyaguna waxay sameeyaan bacdama faamiliyo xaasas iyo reer iyo caruur leeyihiin waxay bilaabaan waxay ahayaan inay iibiyaan ama ciidanka ka tagaan ama agaga ay baneeyaan bakaaradii hubka yaalay suuqa la keenaa waxa weeye waxa ka faa'iideysta cid alla cidii xasilooni la'aanta siyaasadeed ama ka faa'iideysanaysa iyo nabadgelyada ay koow ka tahay shabaab iyo dadka oo qaata hubkii oo barka dambana ay ku dhamaato qabiiladii dagaal inuu ka dhaco dhexdoodii arms embargo waana lagu adkeeyaa maxaa yeelay dee waxaan nahay dowlad fowda ah chapter 7-kana waa sii soconaysa way sii socotaa arrimaha bulshadana saasay u saamaysaa shacabku waa qalbi jaban yihiin bacdamaa dowladdeedii ay haystaan horumar inaba ha yaraatee aysan arkaynin musuqmaasuq uu baahsan yahay waxay noqdaan indifference oo weliba mararka qaarkood dowladda ayay ka soo horjeestaan aniga oo ka faa'iideysanaya khibraddaas waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbeddeldoonka fadhiidka ah aan aado isbeddeldoonka socda haddana ma bilaaban halku dhigaan wuxuu ahaa wax runtii muddo dheer soo socday oo ku dhisnaa khibradda aniga aan leeyahay waxaan go'aan ku qaatay political stability ama xasilooni siyaasadeed dalka inuu galo waxaan uga horeeya xukuumadda aad magacaawdo inay shaqayso muddo dheer taas aad ku wajihi karto fargelinta shisheeye aad ku wajihi karto dagaalkan kula jirno shabaab waxaan siiyey awooddii ugu badnayd xukuumaddii ugu horreysay 3 sano iyo bar iyo shaqaysay oo ahayd waqtigii ugu faraha badnaa ama ugu dheeraa ay xukuumad shaqayso taas waxay keentay political stability keentay xasilooni siyaasadeed bay keentay waxa ugu horeeya aan soo celin waxay ahayd civil aviation oo muddo dheer 30 sano ku dhawaad dalka dibadiisa looga shaqeynaya khaasatan magaalada Nairobi ee Kenya waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dastuurkii oo meel fiican soo gaarsiinay oo hadda sugaya ilaa la gaaro heshiis siyaasadeed heshiisaasi sugaya la cutubadiisa kulli ay dhamaadeen waxaan aadnay safarro aan ku bixinay Puntland iyo Galmudug halkaas oo dadka Soomaaliyeed aan ku soo boqornay iyo xaaladaha ku jiraan waxaan noo suurtooday inaan dadka Soomaaliyeed ee galkacyo degan aan dib u heshiisiin u sameeyno oo muddo dheer ku dagaalamayay magaaladuna ay kala go'oneyd waxaan ka shaqeynay inaan odayaashii dhaqanka isu keenno oo aan magaalada isu furno dagaal dambana uusan ka dhicin sidaas oo kale magaalada Caabudwaaq 5 qaybood ay u qaybsaneyd 7 sano dadka isuma gudbaynin dib u heshiisiin aan ka sameynay ilaa haddana waa isu furan yihiin magaalada Marka oo ugu dambeysay oo iyada naftigeeda muddo dheer dib ku jirtay waxaan geenay dib u heshiisiin dib waxaan u soo celinay wada hadalkii Soomaaliya iyo Somaliland waxaan diidnay shisheeye faragelintiisa waa diidnay pressure in la saaro waa diidnay wax ay rabeen inaan yeelno maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay naloo dhaariyay maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo danteeda taas waxay keentay inaan ku guuleysanay murankii badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay muddo dheer kadib waxaan ku guuleysanay UN Human Rights Commission ilaa xaaladda siyaasaddu way degan tahay oo khilaaf ma jiro oo markii labaad naloo doortay waxaan ka shaqeynay oo aad iyo aad aan u soo dhaweynay dalka inuu galo qof iyo cod waad ogtihiin shaqo badan aan qabanay baarlamaanka waa keenay sharciyan keenay waana laga diiday sharci kale keenay kaasoo keenay inaan ku dhamaano doorasho dadban laakiin wax alla wixii awoodeeda ahaa karaankayga ahaa waa gaarnay
tan ugu muhiimsan aan rabo inaan xasuusiyo dowladdeeda waxay difaacday sharafka iyo karaamada baarlamaanka 5 sano oo aan joogay baarlamaanka marnaba marka laga reebo intii yareed oo doorashada ku jirteen baarlamaanka shaqadiisa waa socotay waa la isku dayay baarlamaanka in la kala diro baarlamaanka waxaan xaqiijiyay mushaharaadkooda inay helaan shaqooyinkoodana si dhammaystiran ay u qabsadaan oo markii ugu horreysay arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalanay musuqmaasuqa waxaan keennay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka waxaan si toos ah oo joogto u bixinay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan joojinay sidii khaldaneed oo lagu bixinayay maxaan ku raahdaa kontraadyada waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay World Bankiga iyo IMF-ka iyo African Development Bankiga iyagoo runtiina siiyey oo ay ku mahadsan yihiin siiyey budget support waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt relief-ka afinta deebankii aan qabnay oo aan gaarsinay ilaa 2 bilyan ku dhawaad in laga cafiyo aan sugayno haddii isbeddelkaanu sii socdo 3 bilyan sanadka soo socda inay naga cafiyaan maxaa yeelay waxay aamineen isbeddelka socda inuu dhab yahay waxay aamineen dowladdan inay tahay dowlad hufan oo nadiif ah ayay aamineen saas darteed wada shaqaynteena aad iyo aad yaan isugu soo dhawaanay arrimaha security-ga way saamaysay waxaan la dagaalanay iyada lafteeda musuqmaasuqa waxaan sameynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan waxaan kor u qaadnay mushaaraadkooda waxaan bixinay mushaaraadkooda si joogto ah inkastoo yar tahay waxaan xaqiijinay oo aan improve garaynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida waxaan xakameynay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo annagu aan leenahay aysan jirin wax suuqa yaalla oo aan xakameynay waxaan ka xoreynay shabaab sabiid iyo caanoole owdhigle jannaale iyo marka waxaan develop garaynay Somali Transition Plan oo aan ku bedelayno AMISOM aan u bedelayno ADMIS oo mandate-kooda aan bedelayno iyaguna ay insha Allah waqtigooda ka dhamaanayso 2024 waqtigooda ka dhamaanayso arrimaha maxaan ku raahdaa bulshada waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa ummadda Soomaalida waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka 24 iskuul yaan gacantii dowladda ku soo noqotay 65 arday yaa free ku dhigata caafimaadka dhowr isbitaal yaa gacanteena ku soo noqotay ilaa 200 oo kun oo patients ah waa sidii aan ula wareegnay waxbaa loo qabtay arrimaha maxaa soo socda goolska aan damacsannahay political stability inay sii socoto in dalku uu galo qof iyo cod insha Allah annaga ugu dhow wax sameyn kara qof cusub hadduu yimaado ma gaari karo xisbiyadii inaan xoojino in aan compete garayno Security Council membership-keeda insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo oo 51 sano ka hor ee noogu dambeysay inaan u tartanno African Union leadership-keeda arrimaha dhaqaalaha debt relief-ka inaan dhammaystirno oo laga cafiyo investment iyo maalgashi xoog leh inaan ka shaqeyno blue economy khaasatan fishery iyo agriculture-ka iyo livestock-ka inaan dhalinyarada shaqo abuur u sameeyno hadduu Ilaahay yiraahdo Soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah hadda anagu normal ma nihin arrimaha security-ga dalka inaan ka dulqaadno arms embargo chapter 7 aan ka dulqaadno shabaabka aan la dagaalno hay-adaha amniga aan u kordhino mushaharaadkooda aan dhammaystirno shaqada wanaagsan ee hayaan ADMIS oo ciidamadeena qalabka sida ay la wareegaan shaqadooda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh